madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo qasriga madaxtooyada magaalada baydhabo ee gobolka bay maysuga qaabilay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo kulun saacado qaaday la weeldhaday guddiga iyo ku dhagownsadii warbixin ka saabsan walyaabo oo qabsoome iyo qorshoonku degsan sidii uga wada lahaayeen doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ee la kawada dhawaan intii ku bilaawday guutaan dalka gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan maxamed ciro iyo gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed yuusuf abduqaadir maxamed baafo mays wada jirey madaxweynaha warbixin ku siiyana in diyaar garowga doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya dhaniyada farsamada foomamka habraacyada la ka shaqeeyay lahay iyo maaliyadda mayna dhinaga kala guddiga iyo ku warbiyana sidii yoon fadahayaan intiyoon qabadan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya guddiga hirgelinta iyo dhinaga kala madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ka bogaadi dadaalkii uu sakabiyaha afjarowka khilaafka in dhexay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo guddigan kuma hadnagay booqashada yoonka kooyan iyo waliba warbixintii la wadaageen maynuusu xusay anti dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ku go'onta sidii siyaasadda dhow iyo ka wada lahayd doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya maxamed xasan maxamed ciro gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo kulanka markii dhamaadii warbaahinta dowladda la hadlay maysu tilmaamay kulanku intii ay kulan guul ka dhamaaday guutaan dalka gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeedna dhawaan iyo ku bilaawdo doonta doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya anagoo maanta guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo socod ku yimi magaalada Baydhabo waxaan magaalada ku soo gaarnay booqasho iyadoo ay weheliyaan guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed koonfur galbeed oo hadda gudoomiyihii la tagan yahay Yuusuf mas'uuliyiin kala duwan ayaan la kulanay waxaana mas'uuliyiinta kamid madaxweynaha cabdicasiis laftagareen arrimaha ugu badan ee hadda kulankeenaas hadda soo dhamaaday uu ku saabsanaana waxay ahayd inaan madaxweynaha siino bal xog ku saabsan diyaar garowga doorashada markay noqoto guddiyada markay noqoto dhinac farsamo dhinac waxyaabihii foomamka ama habraacyadii lagu shaqeynayay marka ay noqoto qaabka diyaar garowga kale ee agab iyo maaliyad iyo wixii la xiriira sidoo kale madaxweynaha waxaan kaloo xog ka siinay bal sida aan doonayno in doorashada aqalka hoose ay ku bilaamato annagoo mahadna uga celinay qaabkii wanaagsanaa ee doorashadii aqalka sare ay u maamuleen koonfur galbeed taasoo ka mid ahayd meelaha ugu yaraan la wada tartamay ee xubnihii ka soo baxay ay wada tartameen marka loo fiiriyo maamulo kale guud ahaan marka shirkeenu wuxuu ahaa isxog waraysi ku saabsan u diyaar garowga doorashada golaha shacabka ee inagu soo aadan fariinteenuna waxay ahayd in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo waqtigeedana ay ku bilaamato kuna dhammaato iyadoo loo baahan yahay dhinacyaduna inay qaybtooda qaataan gaar ahaan markay timaado dhinaca maamulka koonfur galbeed oo iyagana looga baahan yahay door muhiim ah inay qaataan markay noqoto habsami socodka doorashada amniga iyo waxyaabihii kale ee la xiriira waa mahadsantihiin guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee geeka hadeeri magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyo maalmo iyo roogama iyo kulamo laga hadla doonana qaybo shal duwan bulshada kaasoon iyo kula hadla doonaan doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed madaxtooyada